sundusay adiga naftigaaga shalay waa ku jirtay waa ku sabartay social media markuu ku jirane way ka sii daran tahay gabadhaas yariista daaroodna shalay kuma soo galin saxaaf waa xun yahay assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ku xir janaalkeena soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan email-da ka jecel ku soo dhawaada insha Allah waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtaan anaka sidoo kale waa caafimaad qabnaa جمعة ونكسن ما أنت جمعة نوتها جمعة كريم جمعة ونكسن مركز حابي ما أنت واحد إذن صهر فريستي أو ماشي عن صهر فريستي وحان ربعنا كهدلو برنامج كي قبليه ولا عليه أو شالله وذا قولنا عن وضع أركي ماشينا عليه وضع ديين كل جودة با صوتو عني جبر الصوماليات وقوينس وقوينتي وقدم قناة لما أنت وضوحي قلدن إيوحي السحن هرت الله أعلم لكن إيكم متبمدك عوانيس إيسو وضع فريستين كاميرا wada ooynayaan run ahaantii arintaas aad ay damqisay wax laga xumaadana way tahay anoona qofna eedeyneenin qofna uu xaneenin waxa rabaa fikirkeyga aniga shakhsiyadeeda ka hani baa ka ahaan inaan ka hadla rabaa maanta hal iyo laba inaan ka dhaho mujaahidna waa ooynooya qol meeshaas ku xiran yahay waxa ku siiyay jazaa hadoo qeyladiis soo gaarna waa asaga wuu igu dan leeyahay ma fahanteen warkaygu maqli waa marka waxaan sameeyay TV-gan ka damiyay qolkan waa ku xiray meeshaas ku qeylnaa marka hadaba maqashiin marka waa mujaahid ogaada yani ida daro u qeylno yahay ma oyno ilaa ka qeylno yaa marka asxaabay horta waxaan ku bilaabaa arinta sundusan ka bilaabaa sundus ayaan arinteeda rabaa inaan laba iyo hal ka dhaho iyada saxaaf ay ku dhigan tahay dheheyso ciwaankeygina waa laga jabsaday markii dambe ee dhahday lacag saxaafida gadici jiray lacagta YouTube-ka iga soo gasho nus soo qaadan jiray horta lacagta YouTube-ka maadaama aniga gabar barad ahay wadamadana ay kala duwan yihiin sharciyadooda horta sundusay abaayo YouTube-ka adiga banaftigaa gabar oo YouTube-ka wax badan ku jirtaa tahay YouTube-kan qaanuun u yaalaa waxay tahay qofka YouTube markuu shaqeeyo YouTube-ka waxaa jirta lacagaad canshuuraad ay jirtaan wadanka aad joogtidne markaas lacag canshuuraada la iska jaraa lacagta bishaas hadii ku soo galayso lacag tiro badan hadii ku soo galayso lacag canshuuraada laga qaadaa lacag waxa jirta xadidan oo mesela hadii lacagtaas waxay ka badan tahay 1500 iyo 2000 hadii taa canshuuraadka kama qaadaan laakiin waxeerka wadankan Turkiga u taagana waxay tahay lacag intaas hadii soo gasho inay iga jaranayaan xeerkooda waa YouTube kana lacag iga jartaa mid kale oo iga si dheerna waxa markaasi mareykanka kol zaid hadii la iga daawadane mareykanka naftigeeda lacag iga jartaa marka YouTube-ka asaga lacag jarto oo dadka YouTuberada dhan way wada ogyihiin canshuuraada la jartaa canshuuraada la jartaa qolada Google-ka oo ku soo diraysan wuxuu jaranayaan canshuuraada jaranayaan lacag ka jaranayaan laakiin Allahu a'lam oo ma sheegi karo wuxuu ka sii jartay laakiin lacagta ka maqan laga yaabo canshuuraad inay tahay laga yaabo aniga saas isdhaha yani fikirka ahanteeda yani tan YouTube-kaaga walaalay ilaahay horta ku soo nabad celiyo inkastoo daayir cali soo oo haayo aan arkay fiidiyoada iyadoo la soo jarjaray asagoo live ku jiro aan arkay aan tagay asaga haayo sundusay waxa kala talan aan ku siinaa baayo shalay habiina kuma dooran daaroodna kuma dooranin arintan YouTube-kaagane qabiil yaa lagu riixin aniga tan aan ku siinaa ka walaal ahaan taas waay sababtoo dadka qaarkood sheekadan hadda waxa loo jeedinaa oo loo riixoyaa qaybta qabiilka loo riixoyaa gabadhaas gabar yar waaye shalay YouTube-ka xoogeedii ku keensatay walaa daaroodana soo garab istaagin walaa habiyana soo garab istaagin Soomaali Maxamed oo dhan u wada istaagtay halkaas milyan iyo ka badan ka haysato Soomaali Maxamed geesay marka biliis dadka ku riixaya qabiil ka daaya walaalkay daahir cali soo asagana waxa leeyahay adoo Ilaahay ka cabsanaysid gabadhaas yar hadee qabiil iyo daarood ku jibin hadee ka tahay halkaygiyo waxa ka dhacaysa marada ka dhacayso sababtoo gabadhaas yariista daaroodna shalay kuma soo galin Soomaali Maxamed ay ku soo gashay qabiilna afaaraheeda maahan dadka daba ordaya qabiil ku riixayana iika naftigoodana gabadhaas ha ka daayaano waa gabar yar shalay social media wajigeeda iyo kartideeda iyo xoogeeda ku joogtay ka biilanaysay cunug yar iyada iska biileysay
youtube-ka dhibaatadii rafaadku leeyahay anaka dhanaa wada og marka dadka qabiilka gabadhan fuustada ku riixaya waxaan dhihi lahaa biliis walaalayaal ilaahay ka cabsada dad waaweynaad tihiin horta dad oo meel inta soo fadhiisteen oo 9 qabiil caynayo ilaahay ka cabsanayaan ma ahan dad ilaahay ka cabsanaya ma ahan dadkaasi laakiin haddana sidaas ay tahayna ilaahay ka cabsada gabadhaas yar fuustada aa ku riixaysiin ka daaya qabiil shalay ma siinin subscribe Soomaaliyo dhanaa wada siis Soomaaliyo dhanaana wada jecel dhibaatada ee sheegaysa haddana sundusay adiga naftigaaga shalay waa ku jirtay waa ku sabartay intaan youtube-kaaga aa ku keentay indhada dhibaatada aa indhaha iskaga xirtay shalay ya maanta adigoo meel fiican joogo youtube-kaaga saxaaf gacanta ku haayo see ku dhiiratay abaayo inaa inta soo fadhiisataa caysid aniga haddaa adiga ku ahaan lahaa shalay maadaamaaba indhihii wax walba ka xirtay maantana socoshadoo kugu socday iyo 2 garbaasho ku dhahayne indhaha ka xiran lahaa aniga sababtoo youtube-kaaga intaasoo malyan oo ku xirano Soomaali maadaama gacantiisa ku haayo intaa ka baxsanaysa inaa aamustaa ila qurux badnaa laheyd marka ilaahay dhexdiina horta biiqo hawada mariya aan dhihi lahaa ilaahayna xaqa hawada tusiyo dadka kale oo iyakana gabadhan yar u tabaraacayo ama fuusto ku riixayo ama qabiil ku riixayo iyakana ilaahay hasoo hadeey wax kaloo dhahayo malahan waxaa kaloo dhahaa adna iyo walaasheed Amiiro idinka waxaa waay sheekadiina waa family dad walaalaatiin horta ma kala go'aysin dad ceesh wada cuna ama dad oo saaxiibo hadii la isfahmi waayo wadadana lagu kala qulqula oo wax weyn ma ahan laakiin idinka hadii si kasta la isku dagaalo si kasta la isku caayo ma kala go'aysan oo dad isla dhashteenaatiin mideeda kale waalidiinana meesha joogaan waalidiintiina waxaan ka codsanayaa inay idin soo dhaxgalaan oo sida xaqa kimaano abaayada weyn la qadariyo abaayada weyn ay qadariso aan rajin doonaa guriga quruxdiisa taasay horta ku dhisan tahay waalidkii oo meesha jooga haddana TikTok-ga gaashaan waa laga fiican waalidka xataa way saameynay saddexda gabdhood horta videoga igu murugada badnaa adno ahaa adno abaayo horta ilaahay badaada ilaaha ku qaboojiyo sababtoo adigana dheriga labada dhinac ka gubtaa tahay waa ku dareensanahay oo family problem wax ka xun malahan horta social media markuu ku jirane way ka sii daran tahay oo dadaaba waxaa jiraba oo baazinka saas ula daba kacay dabka marka ilaahay dab idinkana bugina burcada la isku mariyo Amiiro adigana walaasha si kastay ahaato si kasto qof wax ku soo dhahay qof kale adigoo qancinayo walaasha iyo familkeeda inaad ku xadgudubtid waa laga fiicnaa sababtoo adno saxaaf kaliya kama dambeeyo saxaafi adno dad isqabaan waaye biri waa calafaa dhamaan kara laakiin dad meeshan waxaa jooga ilmaa jooga aad habaryar u tahay waxaana wax la duubaayo waaye oo biri ilmahaas hadday weynaadaan arkaayo marka anaka waa naqaanaa Soomaali hadaanahna wax badan waa aragnay Soomaali iyadoo ahan caalamkan kale xataa waa aragnay anaka ninkiyo gabadha familkeeda salaam calaykum dheheenin hooyadeed salaameenin gabadha familkeeda wiilkaas gabadhaas uu qabo awgeed ee ku ixtiraamaan taas wax ka xun ma jiro maanta ninkii qabo hooyada yaabay asigoon salaameenin inaa gurigiisa joogo wax ka xun ma jiro wallahi dhacdaas aniga shaahidan ka noqdo waa arkay yani ma fahanteen haddana familka gabadha qabaan ee waxay ku qadarinayaan gabadhooda madaxeeda ee wiilka ku qadarinayaan marka waxyaabahaas oo kale way dhacaan ma fahanteen shalana Amiiro wiilkan hadduu xun yahay xataa walaasha waa qadarin jirteen oo problemkiina wuu qarsanaa oo wax banaanka yaala ma ahayn markii runta laga hadlo marka maanta inaan horta banaanka la keeno oo banaanka la soo dhigo shalay saa u sabri jirteen inaa u sabartiin kala fogaatiin walaashiina korkaas ka alaashitiin aniga waa ogahay walaasha ninka qabo inuu xun yahay maahan walaasha ayaa wanaajisan aniga ninkeeda shaqo ku mili ilmahaas habrirtaan u aha oo meeshaas dhex jooga maanta walaasha xataa hadaa la dagaashid ilmihii oo shalay habrir macaan ku dhahaye fiiriya aad hooyo habar yar ku dhihayseen ilmihii xataa fiiri maanta il noocay idinku fiirinayaan marka waa laga fiican yahay inaad qabsatiin inaad isdagaashiin ilmahaas habrirta u tihiin inaad tixgelisid adnana sidoo kale wiilkaaga tixgeliso maadaama asagana asiim oo biri soo weynaanayo oo arkay fiidiyooda adigana adna ilmaheeda aad tixgelisid qadarisid taas ani ila qurux badan kan hadduu xun yahay saxaaf waa xun yahay shalay waa u sabraysan intaanoo sano idinkaa sabraysan
waxaa fiicneed inaa wajiyada kala dadbatiin waa aniga fikirkeyga yacni inaa wajiyada kala dadbatiin oo meel ka fog ka degtiin waa aniga sababtoo qofka inuu xun yahay waa u jeedaa mahan laakiin yaa jeclahay meesha joogo walaashay macaan ay jeclahay walaashay maanta ninkaas ma u jiray aniga walaashay korka alaalsana laakiin ninkeeda meeloo jooga ma istaagay taasaa idinku filneed idinka dhan familka dhan hooyo iyo aabana waxaan dhihi lahaa iyakane gabdhihiina soo dhexgala familkeena oo Soomaalida horta waaba la iska yaqaanaaba oo mar walbaba ilmaha yar ay u badan yihiin garab siiyaan yani anoona hadda amiira aan dhehayna yani waalidka garab ay siinayaan aniga general ka hadla yani dadka Soomaalida dhana ka wada hadlaya ma fahanteen dadka dhan Soomaalideena waxay u badan yihiin ilmaha yar yarka haday catowdaan ama ay u ooyaan qofku weyn eedal saara ma dhacda زائد ودعدا بقولكي بس عشان بلشدين الصوماليدا وحكوبة واي والد كانوا حانيه لا حق سماية عدالة سماية المهين وعدالة سماية أو حتى قبل وين هدي قلدمتها وقلدم يكرتها وبني آدم وايضا بما قلدم يسمدها يعني هدي قلدمتها حتى يعني سق روح بدن إن أقول هذا الشيء ولا شاكاير يعني way ka yartahay waxaas waa ku qaldan tahay laakiin gabadh yar iyadoo arkeen in la hadashiin qaladkeeda aad tusiin in la dhaho laakiin hadii la dhaho qofka yareed qofka weena loo cabiidina yani xal ma imaanayo runaanti aad iyo aad waxaan u badan tahay adna arinteeda aad si qaasatan ay taabatay markii ilaahay dhaxdooda biyo qabow hadhigo oo waxyaabaha familiyadeena Soomaalida ay u badan yihiin waaye waxa ayaan xume hadana ayaan dare familkiyo meesha taagan familkiyo wada joogo hal wadan ay sii wada joogan inay gabdhii social media isku haystaan waa ceeb waay marka please adni iyo amiir waxaan ka codsanaa dad walaalaatiin si kastay ahaato ma kala go'aysiin arrimihiina hoos u xalsada social media hadaa keentiin reer commenti dabka shidan waxay ku sii horinayaan baziinay ku sii horinayaan marka ilaahay kala dhaxdooda biiqo hadhigo waxa raba marka saxaafina hal iyo laba dhaha asagana fikirkeyga saxaaf waxa tahay nooc la dhigi jiray dayus hal igu qaato igaraal noqdane sababta saas u dhahayo saxaaf maxaa waay ma taqaana waxa sida u dhahayo ma jecel qof bini aadan inaa ku xad gudbo oo wallahi inaa ku xad gudbo ma jecel bini aadan من الربي قيردنا هنا يقاد وحن صحاف لها الديوس يعني وحوايه سجاشن كي السجا دباتي بروبلم لوسو إيديو ناكتي سصهرسو ناكت هذا عشو أذيع هذا أذيع نينك رجع هذا لوسو مجعوي هذا لوسو هذا القاضي أنت عمل سو فريستد تدك أفرتين دوت كوجسوجا أذيع كجهل بحي أدنى إذا نمدي ذا كلا وحدة أدنى أذيك نفضيت كجوج نينك عكسه رئيس جوج ولا علي نينك أسجع أفقبه هادلو ننسى حفوة ما أنت لو متوجو معي صومالي وكاسومالي بدني وكاور بدني هاي ويش قلد يسحنا نين وجيدو واي أذيك أدنى أبايو بليس ميل فريسو إن ده إيش كفير الشيب كده أني نينك تبي ناك نينك واحد يلاقصو شيء ويقولاني أو ما أنت ناك dhehayso male raaliyan ka ah waa ogahay of course waa ka xumaanay waa kullaane laakiin ninkaagiya taagan asaga ha hadlo ha u hadlin abaay saxaaf adigan walaal reerkaaga hadaad ka adag tahay wixii adiga ku soo maago wixii adiga ku soo caayo wixii adiga ku soo eedeeyo please adna ha u dirin waa ka warhaysaa wax walba waa og tahay adiga bax hadal sababta social media shalay idinka dadkan hor imaade dadka idinka midin hor imaanin hadii lagu soo eedeeyo dadka ku sugayaan adina u jawaabtid waay hadaa jawaabeenin xataa ka aamusaysid xataa ka wada aamusa adnana niyo soo hadlin naagtaada waa naagtaada ha hadlin walaalaha waxba ha ka bixinin wala comment wala hadal no comment no hadal ishas ka fiirsada laakiin inay naagtaada ku soo hor ordo mar walba qof ay saarnaato wax laga qurux badan yahay waay adna adigana qiimihi aalheed oo bulshada kula heedaa indhahooda ka dhacay abaay maanta waa ku qiimo beelay marka aniga
mana rabo dad badan inaa ku xadgudbo laakiin saxaaf in ereygaas waxaa u dhahayana waxaa waay dayuus waxaa u dhahay wax kale ma ahan gabadhaas naagtiisa oo meel walbo kasoo muuqanayso oo ku fiirsanayo waay ma fahanteen maahan xumaato kala familgaas u qabo malahan family qurux badan waa ilaaha isku barakeeyo wixii la sheegay run iyo been waxay taa Allahu a'lam aniga sababtoo ah waxa shaahidka ah malahan waxa maqlay oo dhigteeda maqashay aniga qofkuma xukmin karo laakiin waxaas ma aragtay maanta dhan dhacaayo waxa oo saxaafad naftigiis duyuusa u dhahay sagaashanka adna markii la heesto ee kasoo horeysa waay cisho naagtaada bisle waay canaan la iga tahay waxaa arkaya dad soo hadlaayo oo intay qolol soo furteen iyo ka hadlaya saxaaf caynaad saxaaf saanoon yeeli jir kanoon yeeli jir horta awal shii YouTube haddaad artid inaad ka shaqaysatid qunyar socod ahaa kaligaa shaqayso haddaad dhahdo gruuba ku wada shaqaynaynaa calooshan la isku fiyoobeen midkii ka fiis badnaada uqdad loo qaada haddana dadkan waa dad social media ku jiro oo ka wada shaqaysanayo ciishkooda ka dhacsanayo oo biilkooda kasoo dhacsanayo marka group intaa ku shaqaysan lahaydeen qunyar kaligaa u socaa ka fiican ilaahay ma $100 kaasoo gasho taas laakiin sharaftaadii qiimahaaga adiga ay ku taagan tahay taas aniga ila fiican taas aniga ila qurux badan qofna mas'uul ha ka qaadin hadhiin YouTube-ka anaa kuu sameynaa YouTube-kiisa gacanta ha ka qabanin xataa aniga ma jeceliyo qof YouTube ii sameey idhaan xataa ma aragtee adiga sameyso waa kuu sheega biri ka maalin waxaa ku dhacay adaa lagu eedeena hadda sida Sundus heysatoo kale lacagta waxay dhahaysaa lacagaa laga jartay waxaa laga yaabaa lacagta inay YouTube-ka jartay inuu wadanka qaanuunka sharciyada u yaal inay jartaa laga yaabaa laakiin asagii eeda ileen asagaa lahoo shalay asagaa waxaa qaaday xil qaada ninkan marka waxaa waay Soomaali ma laga amaan helaayo dadkan familkan dad fiican miya dad xun miya dadka la ceeshaa ogaan karo aniga banaankaas ka arkaa dad fiican aan u arkaa shalay dadkii markii la soo dhaweeyay dadkana horta bini aadankana waxaa waay mataqaanaa qisada labada dhinac iyadoo la dhageysanin wax la xukmin kara ma lahan dadkeena waxaa waay meel la iskugu imaanaa waxaa la sameysanaa wax yaroo waxaa soo galaayo maato qofkii shalay wanaagga uu sameeyay xataa waa ku xumeynale xumaan le lagaaga dhigaa marka shalay gabdhahana iyakaa saaxiibo ahaayeen iyakaa walaalo ahaayeen waxay ku kala hareen Allahu a'lam waxa xanxantaasoo banaanka laga maqla gooni waaye ilaahay kan dhexdooda biiqo hadhigo gabdho walaalo isjecel ahaayeen shalay oo YouTube-kaas isla duuban jiray isla wada qosli jiray maanta buuqan iyo shaydaankaana soo dhex galay marka ilaahay dhexdooda biiqo hadhigo familkaasna haddii iyakana waxa lagu sheegaya ay run yihiin ilaahay idin soo hadeeyay hadday run ahayn kale ilaahay familkii nuurka isku indul saaro family problemkeed haystane ilaahay idin ka qabtaa dhila wax kale dhahaaya malahan ilaahay ka wada qabto family problemkana zaaid aad qalbiga iyo xanuujiye markii ilaahay biiqo ha dhaxdhigo familka qaasatan amiiri iyo walaasheed I hope waxaa rajayn doonaan insha Allah hooyadii iyo adooga meesha joogaanne inay arintaas intay dhaxgalaan gabdhahaasi bal isku maslaxeeyana rajayn doonaa insha Allah Sundus ayaan la adigana abaayo arintaadan iyo qabiilka gelin YouTube-kan shalay markaas sameysanaysay oo u halgamaysay oo maanta meeshaan keensanaysay 1 milyan shalay in adeeradaada xataa hadee dadkan ku xumeynayeen xataa in adeeradaada iyagoo garbahaada joogin ay kugu daawanayeen runta markaa kuu sheega aniga qabiil iyo waxaas ma jeclo afaarahoodan inaan soo galana ma jecle laakiin qabiil markii la dhaho Soomaalideena aadi ay qiirada u qaadaa xataa yacni reer commentiga waa arkay marka gabadhaas yar oo YouTube-kaas ka shaqaysato YouTube iyo rafaadkii dhibku leeyahay aniga og maalin walba la soo gelinayana wax sahlan ma ahan maalin walba program la raadinayana wax sahlan ma ahan editing soo gelin aad u dhib badan tahay markii gabadhaas yar YouTube-kaas intaas ay u soo halgamaysay ee xoogeedu u soo dhacsatay war Soomaaliyeey qabiilka ka daay Ilaahay ka cabsada adigana Sundus aqli yeelo ee qabiilkan ay kugu wadaan dadkan inta iska joojisid abaay macaanto qabiil wuxuu ku keenay male shalay waxa meeshaas ku gaarsiin qabiil kuma gaarsiin
walaa habiyaan ku gaarsiin walaa daaroodaan ku gaarsiin maskaxdaada ka soco qalbadaada ka soco geed dheer iyo geed gaaban u kor youtube-kaaga soo cesho shalay saa ahayd noqo dhib wixii wada horta allah naga wada qabto gabadhaasna allah ka qabto gabdhahan kale walaalaha ku dhex jirana allah ka qabto iyakane dhexdooda dhammaantoodana maslaxa allah dhex dhigaan dhihi lahaa insha allah please meeshaan haddaa imaad videogan noo like garay noo share garay khayr iyo caafimaad idinkaga tegay aniga fikirkeyga waa intaas yani fikirkeygaan ka hadlay qofaan la jira malahan qofaan ka socda malahan waa anigii shakhsiyadeeda jeclaystay inaan ka soo hadlo marka asxaabe khayr idin rajeynaa bye bye